dabayaaqadii bishii Disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 31 bishii Disembar 2019. dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daahfuran u shaacinin xanuunkan maalmihii ugu horreeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isu socodka iyo safarrada dadweynaha, iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyey waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waayo aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka. Dr. Yaasiin Gaardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkani ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay. xanuunkan iminka wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus baa la yidhaahdaa. familigan waxay ku nool yihiin xawayaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadanka noolayn iyo bini-aadanka way ku dhacaan. marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xawayaanka uu bini-aadanka yimaado, jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan, marka la qastigiisu wuu ku adkaanaya. sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira dhaqamo ay leeyihiin oo kamid ah inay cunaan xawayaanadan wildlife-ka ah. marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970 markii abaar xun ay ku dhacday waddankan Shiinaha, ayaa dawladdu waxay dhiirigelisay inay magaranaysaa industry-ga wildlife-ka la furo. marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddankan Shiinaha. marka xanuunkan ugu dambeeyay iminka COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday bat oo ah feedmeerka waxaynu inagu nidhaahno. intermediate hostigiina uu ahaa xawayaan la yidhahdo pangolin. waa gartay, bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay. sababta keentay inuu aadka u faafo waxa weeye xanuunkan waxaa xilligaa uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxay xilligii ay Shiineysku ay ku jireen New Year-koodii ama ay ku jireen sanadkoodii cusbaa. marka dad badan baa adduunka aadayay oo xaggan Shiinaha ka tegayay, iyaga dadkan Shiineyska laftooduna goboladooda ayay ku laabanayeen. marka magaaladan Wuhan aan joogno markaa waxaa ku noolaa 15 milyan. 5 milyan oo ka midi way ka baxeen magaaladii. marka waxaa loo badinayaa 5 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geeyeen. sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii inkastoo wax badan laga ogeyn, haddana faafitaankiisu wuu ka badan yahay. marka la eego epidemiologically wuu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyey ee SARS-kii 2003 ama kii Soweeliga 2012 ka bilaabmay la odhan jiray MARS ama Ebola-hii oo kale. in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan. kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka warramaya Dr. Yaasiin Gaardo. markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii koowaad ah dawladda Shiinaha kuma dhawaaqin, lamana sheegin. marka January 20-keedii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo WHO sheegtay, Shiinaha sheegeen, newska la geliyay. marka inta hore dadku ma ogeyn, waana keentay in dad badan uu ku faafo xanuunku. marka January 20-keedii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro, ay dadkii ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelihii wax laga soo gadan jiray. marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagoo hurina labadii habeenimo inta lagu dhawaaqay 10 subaxnimo
magaaladii la xiray. marka markii hore waxaa dhacay panic suuqyada lagu cararo sida warkaarkiisa meelo kale. haddana waxaa soo gudoonaatay stage kale oo ah in cuntadii xoogaa garaabta soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10 cisho 20 cisho yaro xidhnay. haddana waxaa soo gudboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo unbay hayday. iminka waxa weeye tagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. iminka waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. marka xaaladdu way soo roonaanaysaa laakiin Chinesku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana numberku kor u kicin. marka aad baa iminka waxa weeye waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag. cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis. dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. wadamadii ugu dambeeyay ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16 bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horeeyay oo ah nin Soomaali ah oo ka soo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortagga cudurkan. cudurka coronavirus in Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso ka badan ay halkaas ka imaan karayso. waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay dhilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubaraada ah oo waxaan ku takhasusay ay u sheegaan ay qaataan. waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyaddooda la xayiro. waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ayna soo gaartay. laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd xanuunkaas oo si baaxad leh u gaadha dadka ama faafa? ilaahay ma faafiyo laakiin haddiiba uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii? waa su-aal fiican. allah leenahay Soomaaliya waxay markaas ka fikiraa allah noo maqan. waan ognahay caafimaadkeena sistamkayahay. waan ognahay inaysan ka jawaabi karayn musiibo baaxaddaas intaas leehay. laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba oo mas-uuliyaddiisa qaato hooyo kastoo mas-uuliyaddeeda qaadato nin kastoo shaqaala mas-uuliyaddiisa qaato oo dadka dhan qof walba suuqa oo mas-uuliyaddiisa qaato qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano waxaa suurtagala inaan yarayno oo ay naga yaraato. laakiin dhaqanka dadka u dhaqmaan oo hargabka uga dhaqmaan waa mid runtaa kuu sheegayaayo khatar badan gelinaya. mana taqaano Soomaaliya hargabkana cudurba uma taqaano. laakiin sistamkeena caafimaadku kuma filna. maxaad ka rabtaa anaga nagata mid kaliya ku filnaa weysa annaga xaggeen joogna. dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa. sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad ah xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. sanado badan oo dagaallo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dawlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood. Dr. Yaasiin Gaardo oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan. xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meel uu kaaga imaanayo mataqaanid. Wuhan kaliya maaha, Shiinaha kaliya maaha, Talyaani maaha, meel uu inooga imaanayo male. koowaad ay samayn karno dawladda hadday nahay waxaweye dawladdu waa inay isku daydaa in shaybaadkii la keeno. oo marka koowaad Soomaaliya imika waan jeegareeyey kuma jirto wadamada Africa ee shaybaadka samayn kara xanuunkan. marka lama garan karaba waxa xanuunka yaan qabin xanuunkan astaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weeye dee waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa. dadka qaar baan lahaynba astaamo. qof baa wuxuu ku jiraa waqti huriskiisii oo markaas waddanka yimid oo dadkii faafin kara. marka qofkii iska shakiya si looga hortaga dowladda Soomaaliyeed waxa loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan WHO-da iminka ugu dambeysay ka caawinaysay wadamada inoo dhow Tanzania oo kale maalin dhowtooda ay sameeyeen oo lala wadaagay hiddasidihii viruskan loona tababaray
marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay already ba codsadeen laakiin haddaanay samaynin imanka waxaan ku boorin lahaa inay sameeyaan CT iskaanadii lasii diyaariyo diyaargarow adag la sameeyo. waxaad moodaa dadkeenu inay isku aamineenba bahalkan yare thermometerka airportka lagu jagaranaya kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January wuu yaalay haddana xanuunkii muu joojin. qof kastaana gurigiisa dhigan kara mana aha qof kasta oo xumad leh xanuunkii uu qabo ama ma qabo. hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed waxaan ku boorin lahaa inay horta safarada unnecessary-ga iska yareeyaan oo maadaama imika adduunka xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiikar lahayd haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary aanad aadin oo aad waxa weeye airportada dad badan baa soo kulmay aad iska joogto gurigaaga gamcaha dhaqdaan gamcaha dhaqashadu aad iyo aad muhiim tahay markasta dibadda ka timaadid waa inaad gacmaha dhaqatid xagga inaynu mask xidhano oo bahalka afka lagu xidho xeerkaa maynu gaadhin laakiin dadka dhakhaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airportada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xidhaan iyagana waa muhiim. deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shaybaadhka aad uga shaqeeyaan. haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? daawase ma loo hayaa? inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaalo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. tartamada ugu adag waxay ka socdaan waddamada Shiinaha, Maraykanka, Austraaliya, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai. collaboration waa jira oo waxa waaye WHO-da qayb weyn ay ku leedahay. marka ilaa iyo hadda yani gruubka on ugu rijada fiican oo maaragtay at least ay leeyihiin maaragtay jaaniska ugu fiican inay horay wax usoo saaraan ay ugu badan tahay waa studygan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la Dubai University iyo National University of Singapore waxay joogaan hadda phase 3 oo aadami ku tijaabiyaan prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo haddii researchgaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu suubiyo. bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yidhahdaa. caabuqana dawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay? walaal su'aalaad fiican waay. horta anaga caabuq marka la yidhaahdo waa moogtahay sanbabka oo infection ku dhacay maaragtay. caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bacteria. de waa laga adkaadaa oo waxaa la isticmaalaa antibiotic-gaasaa marka qofka la siiya. haddaa xusuusatid hargab markuu qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaadaa. markii la hargabka waa ku xumaada waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bacteria inay soo gasho qofka jirkiisa awalba ku noolay dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku zaa'ido oofoo kale uu ku noqdo ama qaarjeer bas u yaqaano. waxa lagu daaweynaa antibiotic. kan marka muxuu uga duwan yahay? kan waxa weeye wax bacteriyadii kasii yaryar oo la yidhaahdo viruskii oo ah mid cusub. marka sababta caabuqyadii hore o dhan aan u daaweyn jirno oosan dhib aysan ku lahayn waxay u badnaayeen bacteriyana waxaa lagu daaweeya antibiotic oo meel walba available ka ah. laakiin markuu noqdo virus de waa ka duwan yahay. daawadiisii helidiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiriyay ku tahay, waana virus cusub oo ma hubti daawadan aad siinayda inay tahay mid shaqaynayda in kale waa on clinical trial ku tijaabi maara. maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay. waa maqlay oo waa dhageystay aniga culimada dhexdeeda aniga ka hadlaynin culimada sheekhaas xariisana wareeda waxaa idinka cudurka yaa dembi aan galnay waa waxaas aan galnay yaa hala yidhaahdo. laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ay dhakhaatiirta jeclaan in la fuliyo dadkii laga qayb galo. sax waa kugu raacsanahay
anigu maanta ka aragay daawahoodaa la sameynaya ma anfaxayso. waxaan aragnay nimanka culamada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mujaawaadka sameeya. anigu ma diidin waxa leeya xishoodaya, laakiin cilmi ku fadhisaa. ma ii sheegi karaa publication intuu sameeyey uu dad nooc COVID-19 qaba uu siiyey daawadii oo ku rita ma ii sheegi karaa? mama jirto. cudurka dawada soo gelin weli lama keeni karo. marka waxaas waa dadkana maray habaadisay ku sameynayaan. laakiin nin baa hadda kahor waxaa la yidhi reewa maxaa ku caafimaatay isagoo cudurkii looga daaweeyayo. wuxuu yidhi cagmaroodi biyo gale oo inta cabadiisa ku rita cagmaroodi biyo gale. marka suurtagal maaha. waa habaadis weeye, waana garan karaa waxaas waxyaalaha dhaqanka ah. laakiin dadka hargabka dhanba haddii hargabka fasin waa lagu daaweeyaa, malab waa lagu daaweeyaa, lima dhanaan waa la cunaa, vitamin waa ku daranta laba diib ayaana waxaas. laakiin waxa intaas uga daran inaysan kugu dhicin aan ka shaqeyno. ilaa midaana waxa marku kugu dhaco aasaas iskaga daaweynaysa. waa inaan dhammaanteen gacanta isku qabsano cudurka primary prevention inuusan kugu dhicin. waa inaan annaga u istaageen. tusaale haddaan soo mileeyo cudurka la yidhaahdo shareecada, haddii aad tallaalan tahay kugu dhicin maa saaxiibin. marka waa inaan annaga ka shaqeyno cudurka inuusan kugu dhicin oo aanu qaadano tilaabooyinka loo furudeyn kara cudurka iyo annaga inaanu isaabsan. marka qodobkaas saas aan uga jawaabaya. daawada ah saas ha la yeelo iyo saas ha la yeelo. cudurka marka ku dhaco gobolkood isbitaal ay baahan yahay. marka malabii waxaan keenaynaa iyo lima sida ninka ICU u baahan. waa ka hadalku waa halkaas. kasokow haddaba argagaxa uu xanuunkani ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo, waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay ka soo kabanayaan. xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay ka soo bogsadeen cudurkan, sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuriye. والله waxyaalaha aad cajaabka waxa way 84 jir Iiraaniya oo inta sanbabkiisii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay ICU la geliyay, daawada la siiyey, intubationka tubooyinka ku neefsayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyay, maaragtay istaagay oo salaamu calaykum aad dhahdeen idoo xalala wax aad u farax badan. intee in la eg buu sii jiri karaa cudurkani ama uu inala sii joogi karaa? estimation dad badan oo public healthga iyo epidemiologist oo qiyaasay waxa oo la qiyaasaya inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano. waa gartay. marka maxaa lagu saleeyay? laakiin waxa isbedel keeni kara haddii vaccine-ka sanad ka yar la helo. waana iska dhib badan tahay vaccine ilaa iyo mass production loo suubiyo 1 sano inuu inta heshid isla markaasna populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo waxbaa isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan pandemigiisu 6 bilood waa soconaya maaragta. waa garta. waa daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay waana soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortegi karo waa maxay? habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet. inkastoo shalamaana dara WHO ay tiri xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawado kaleeto hadduu galo muddo badan joogo waa ku gudbi kartaa. laakiin basically annaga intaan ognahay waa droplet. gacnaha marka dhaqida lagu leeyahay gacnaha hala dhaqdo waxay ku soolaysan tahay waxa weeye haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taaban viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maaragtay u fududeeyo jirka aadamiga inuu galo. marka indhaha oo kale ilintiya jirta ma ogtaa. marka haddii gacantaada dheerta indhahaaga aad ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo. marka hand hygiene-ka waa priority 1. qofka waxaan dhihi jirna maaragtay wejigaaga iyo indhaha iyo hataabanin. laakiin hadda habkaan ugu fiican anagu meeshaan ku niraan waxa weeye gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wejigaaga. marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii, ma jiro daawooyin ka hortaga oo la siiyo. waxa kaliya soo haray waxa waaye personal hygiene, qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragtay kana fogaado meelaha maaragtay dadka badan iskugu imaanaya.